السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي intaad bilowday cashar ma ku caajistay? Caajiskaasi waa mid ka imaanaya diiditaan ay diidaysa naftaadu inay markaas sii wado akhriska markaad u dirtay, maadaama ay tahay markii ugu horreysay ay wax akhrinayso markaa naftaadu. Waxaan ku hayaa ilaa 4 tallaabo oo aad markaa raaci karayso haddii aad doonayso naftaada inaad ka guulaysato oo aad markaa rabto inaad markaa naftaada ay si fiican wax u akhrido iyadoo markaan caajisaynin. Number 1, tallaabada koobaad aad raacayso waxa weeye marka koobaad qorshee waxaad akhrinayso. maanta ma hal page baad akhrinaysaa, ma 2 page baad akhrinaysaa? markaad naftaada u qorsheyso waxaad maanta akhrinayso waad ku guulaysan karaysaa inaad si fiican markaa u akhrido adigoo aan markaa caajisaynin. tallaabada labaad waxa weeye ballanqaad u samee naftaada oo naftaadu maanta markay wax akhrido oo 2 page tusaalahaan oo kale 2 page baan qorsheysanay inaan akhrino. 2 page maanta aad qorsheysatay inaad akhrido markii naftaadu akhrido wixii markaa ay jeclayd ugu ballanqaad inaad waxa markaa u fulinayso. tusaalahaan mobilka ayaad iska daawan jirtay waqtiyada badan, waqtiga markaa daawan jirtay waxaad tiraa maanta mobilkan ku daawatiinaya haddii 2 page si fiican aad u akhrido. 2 page marka dhammayso ballanqaadkii nafta waa inaad markaa u fulisaa. tallaabada saddexaad waxa weeye inaad naftaada ka fogeyso wax kastoo challenge ku noqon karaya ama caqabad ku noqon karaya intay markaa akhriska ay wado ama caajis gelinaya. oo bilmetel tusaalahaan oo kale waxa dhacda inta badan dadku inay wax ku akhriyaan meel dad fara badan joogaan, taasi markaa waxay u suurtagelinaysaa qofkii inuu asxaabtii dadkii markaa la sheekaysto, markaa taa waad ka fogaanaysaa. waxa dhacda dad fara badan inta yiraahdaan waxbaan wada qaybin arday fara badan inay isu yimaadaan den markaa halkaas ay sheeka ka dhalato. markaa doonaysa inaad wax akhrido keligaa markaa meel la gal den markaa intaas markaa sidaa ku soo akhri. tallaabada ugu dambaysa waxa weeye naftaada sii hurdo ku filan sii. oo haddaad tiraahdo habeenkii oo dhan waa soo jeedayaa saakana imtixaankii baan markaa gelayaa taas markaa waxay noqonaysaa inay hurdada ay naftaada weyday inay waxbaba soo xasuusan kari weydo. marka haddaad doonayso xasuus fiican, haddaad doonayso caafimaad fiican, hurdo kugu filan naftaada waa inaad siisaa. hurdo kugu filan markaa seexo. 4 qodob iyo in kale oo kasii badanba waxaan filayaa inaad haysaan. insha Allah xagga commentiga nagu reeba. aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba.